wax ka ogow 12 tallaabo oo taariikhi ah oo la qaaday 12 bilood ee madaxweyne Farmaajo oo xafiiska joogo heshiiska socdaalka ee Soomaaliya iyo Kenya. heshiiskan ayaa meesha ka saaray dhibaatadii dadka Soomaaliyeed ay ku qabeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Wajeer oo lagu sii baari jiray maamulka hawada. dawladda madaxweyne Farmaajo ayaa ku guuleysatay in maamulka hawada Soomaaliya loo soo wareejiyo magaalada Muqdisho kadib muddo dheer oo laga maamulayay dalka Kenya. soo deynta maxaabiista waalidiin badan ayaa nasiib u helay inay mar kale arkaan eheladooda oo muddo dheer ku xiraa xabsiyada wadamada Itoobiya iyo India iyagoo dawladda ku amaanay tallaabada taariikhiga ah socdaalka nabadda. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Farmaajo ayaa safarka nabadda oo qaatay 17 maalmood ku maray qaar ka mid ah gobolada dalka iyadoo safarkaas uu muujiyay kalsoonida dadka Soomaaliyeed ee ku qabaan dawladda. sharciga isgaarsiinta muddo dheer ayuu baarlamaanka hor yaallay sharcigan ha yeeshee dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sanadkii ugu horeeyay ku guuleysatay in sharcigan la ansixiyo. musuqmaasuqa oo ah dilaaga horumarka iyo dawladnimada ayay dawladdu aad ugu dadaashay in xididada loo siibo iyadoo aad u sareeyo dabagalka iyo isla xisaabtanka dhaqaalaha. kobaca dhaqaalaha oo ah aasaaska horumarka bulshada ayaa shaqo badan la geliyay iyadoo la dhisay madasha wasaaradaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka kuwaas oo ka shaqeynaya kobcinta dhaqaalaha wadanka. bixinta xuquuqda dhammaan shaqaalaha dawladda iyo ciidamada ayaa si joogto ah xilligeeda u helay mushaaraadka iyo xuquuqda ay dawladda ku lahaayeen. sugidda amniga samaynta ciidanka xasilinta iyo isla xisaabtanka hay'adaha dawladda ayaa aasaas u noqday qorshaha sugidda amniga ee dalka. tayada ciidanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Farmaajo ayaa shaqo badan geliyay sidii loo tayeyn lahaa ciidanka qalabka sida iyo sidii loogu dhiirigelin lahaa shaqada ay u hayaan wadanka. gurmadka abaaraha qorshaha dawladda ee ahaa waan isku gurman karnaa oo isku xiray dawladda iyo shacabka ayaa gurmad taariikhi ah u noqday in si degdeg ah loo caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde dawladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay tan iyo burburkii markii ugu horeysay in garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde uu shaqeeyo xilli habeen ah.